qaar ka mid ah qoysaska ku nool xaafadda Hayayaabe ee galbeedka magaalada Boorama oo maanta shir jiraayad ku qabtay gudaha xaafadaasi ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen dhul ay sheegeen inay hore u lahaayeen waqti xaadirkan lagu haysto taasoo ay sheegeen in ciidamo la soo duldhigay waxaana fariimo kala duwan u direen taliyaha qaybta biliiska ee gobolka Awdal barasaabka gobolka Awdal iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi taasoo ay sheegeen in arrintan sida ugu dhaqsaha badan loo soo farageliyo waxna looga qabto iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa haddaanu nahay beesha degan xaafadda Hayayaabe waxaanu halkan walaalayaal ka soo gudbinaynaa waxaanu nila wadaagaynaa dib aad iyo aad u badan oo ma aragtayna lagu hayo annagoo imika aanu arkaynay in ifafaale ay jirto in dulmigii iyo isdhicii inuu sii dhammaanayo aan moodayno ayaan maanta waxaa xaafadahayagii iyo beertayadii ku soo korodhay in intaa ka hadhay ma aragtay nalagu bilaabo arrintii ugu xumayd ah oo ah in lagu raro oo ah in maxaan ku idhaayay deegaankaagii iyo dhulkaagii xoog lagu qabsado sidaa awgeed waxaan u sheegayaa madaxweyne talooyinkii aad u soo jeedisay shacabkaaga haddaannu nahay beelweynta annaaseed ee reer galab waannu qaadannay waxaa ka mid ahaa qodobada ah in dhulku inagu wada filan yahay ilaahay baana subxaana wa tacaala sheegay alam najcal ilarda kifaatan axyaa'an wa amwaata buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala arladu waa inagu filan tahay ee ha la isgaadhsiiyo beertayadaas boqolkiiba 95 waa la deggan yahay oo dadkayaga oo aan meel ay degaan haysan baa deggan dadna ma aragtay dan guudana waannu siinay qodobka labaadeed ka hadashayna ma aragtay madaxweyne waxa uu ahaa ma aragtay danta guud la bixiyo dantaa guud haddaannu nahay beelweyntaas waannu aqbalnay dad waxaan nahay jecel Somalilandernimada dadka muslimiinta meel kastay joogaan jecel baan nahay sidaa awgeed waxaana laga codsaday inaan bixino dugsi ayaannu bixinay waxa haddana lagu yidhi waxaad bixisaan madarasadii baan bixinay weliba waxa soo dhisay qurba joogta beeshayada ilaahay subxaana wa tacaala ajir iyo xasanaada ka siiye madarasadaas oo ka kooban 4 qol oo aad iyo aad u qiimo badan oo loo dhisay beelweynta iyo ma aragtay bulshada degan Hayayaabe waxa kaloo ka mid ah oo nalaga codsaday inaan bixinno xanaanadii dhallaanka iyo hooyooyinka lagu xanaanayn lahaa waxaannu aqbalnay inaannu bixinno waa tii ugu dambaysay eed madaxweyne aad noo ballan qaaday sida ugu dhaqsiga badan noogu dhistay wayna noo dhisan tahay inkastoo weli furitaankiisii dhiman yahay waxaana laga codsaday inaan kiyooskii biyaha dadku ay ka cabbi lahaayeen aan bixinno iyadiina ma aragtay waannu bixinay walaalayaal masaajidka iyo khayraadka kale waa badan yihiin laakiin waxaasoo dhan inta la soo dhaafay ayaa meeshii aannu degi lahayn meeshii ubadkayaga aan dejin lahayn annagu magaalo kale ma lihin annagu waddan kale ma lihin waad ogtihiin dadkayagu waxay ku kala firdhisan yihiin oo ay ku kala baahsan yihiin dunida daafeega kala duwan bay ku kala tiirsan yihiin meel haba yaraate aan ku tiirsannahay oo magaaloon gaaran leenahay ma jirto magaaladayadii waa Hayayaabe magaaladayadiina waa naloogu yimiday waxaana noogu yimiday maayarka uu waqtiye ma aragtay magaalada ma aragtay gobolka Awdal oo muddada yare u hadhay doonaya inuu na dulmiyo doonaya inuu ma aragtay jiridda noo gooyo waxa uu markaa uu sameeyey ee uu ku dhaqmaya waxa weeyaan in uu ma aragtay dad keenay waxa ka dhiman xilligii uu dhici lahaa ama ma aragtay la sogootin lahaa 5 cisho ama 6 cisho ama 7 cisho ka dhiman waxa uu sameeyey shalay iyo darad iyo tii ka horeysayba inuu ma aragtay ciidan uu wato uu noo keena annaga oo meeshii aan degi lahayn uu ma aragtay naga burburiyo oo uu yidhaahda idin dan guud weeyi oo uu sharciyo beena u sameeyo waannu haysannaa walaalayaal waxa weeyaan sidaa awgeed madaxweynaha iyo indheergaradka waxaan u sheegaynaa in dulmigaana lagu hayo
wixii ay Soomaaliland nooga baahnayd oo baahiyihii saddexda qaybood ee waxbarashada iyo maxaan ku dhahay biyaha iyo maxaan ku dhahay gebi aan wada bixinay haddana aan nolol ogolayn waxaan moodaynaa inay sii dhamaanayso isyasida iyo dulmigu inuu sii dhamaanayaan mooday aan markaan aad ugu fiirsan halka waxaanu ka bixinay iskuul cabirkiisu yahay 70 by 70 waxa kaloonu ka bixinay madrasad waxa kaloon ka bixinay miskiid waalidiinteedii dhukaan noo qabtay ilaahay dartii aan ugu bixinay waxa halka yimiday maalintii wadada Muuse Bixi uu nooga jarayay cabasho guud baan bixinay xanaana naga dhiman baan nidhi Muuse Bixi wuxuu yidhi wadantii guud waad bixiseen haddii meel la iniga dhiso aad haysaan xanaanada anaa imika dhisay sidaa darteed cabsi uma aanan bixinay dumarka iyaga dartood yaan xanaanadana u bixinay marka anagu waxaanu ka gamilaanahay maayarka waqtigiisu dhamaaday ee hantidii dawladda intuu cunay meel aan wax ku tilmaamo raadinaya iyo ninka la yiraahdo Cabdirashiid reer nuur ee doomitirka halka waxay keeneen boolis waxay keeneen ciidamada militarigu waxay ku koobnaayeen amniga iyo cid jilicsan inay taageeraan ee bilaadaka jilicsan ee maatida iyo agoonta looga tagay dhaxalka inay boobaan looguma talaginidii madaxweyne boolisku amnigu ku shaqalaha 13 nin oo boolis iyo ku qoran warqadahan oo dhulka nin walba jaga uu doonayo oo noo sharciyeeyo dawladda hoose ay yiraahdeen saaka halkan aanu ka tagnay taliyaha qaybta nuu geynay warqadii waxaan nidhi taliyihii qaybta shaabadaada la noo isticmaalaya booliska aad maamusho weey waa kuwa waraaqahoogi cad halkaasay marayaan naga qabsaadeer waanu ka gamilaanay wuxuu saaka noogu jawaabay inta maanta tagtay magacooga ma haysaan ee hadda joogta anakoo la joogna taliyihii qaybta yaa la nagala soo hadlay xaafadeedii hayaabe boolis baa yimid iyo ciidan baa la yidhi ku yaroo naga midaa la qaaday waxaanu ku soo gaadhnay ninka Cabdilaahi Caatan la yiraahdo taliyihii qaybtaan noo sheegnay ninka Cabdilaahi Caatan nagu soo gaadhnay ku yarna waa laga soo qaaday noo soo daaban ku nidhi weli aalaankaana kaageera u xidhay xafiiskii barasaabkoon uu maqnaa xogeyntiisii oo nasaragnay waxa way dulmiga inta leeg annagu waxaan u qaadanay Soomaaliland darnimo bilaadku ay ogaadaan maamulka ha ogaadaan taliyaha qaybta ha ogaado madaxweynaha ha ogaado wasiirka caafimaadka ha ogaado wasiirka waxbarashada ha ogaado wasiirka diinta iyo qaabta ha ogaado wixii islaam afka islaamka ku hadlaya muslimiin ha ogaadaan malina ninka dambe halka noogu yimaada askariya daybooba haddeedana way naga go'antay waanu iska celinaa shiid baanu ku dhimanaynaa Allahu akbar baan leenahay way naga gaadhay dibtii halka ka timaadana maamulka gobolka aad u dhiibatay madaxweyne yaa ka mas'uula waxaan ka hadlay waa Cabdilaahi Kaadiye oo ah dadka dhul kale ee calaalaya ee ooyayo ee la dhacayo ee la dulmayo ayaan anagu waxa weey iskuulka ayaa horta bixiyay la yiri waa dan guud baa la yiri waan bixinay ma diidin ma dagaaltamin waan bixinay waxa la yiri xanaana bixiya waan bixinay madrasada bixiya la yiri waan bixinay shaaba noo timiday meel kilo soo biyahan dhigno bixiya baa ay yiraahdeen waan bixinay inta baan naga bixinay oo maxaan ku rahaa ilaahay iyo ummaduba hay ogtahay uu jaarku og yahay oo maxaan ku rahaa dadku wada og yihiin ayaa haddana 24 saacadood bisha imika dhamaatay ilaa bishan imika 24 jeerba askar iyo ciidan iyo cagajugleyn iyo qasab iyo xoog lanagu muquunanaya shalay way yimaadeen xoog bay maxaan ku rahaa dhulka ku calaamadeynaa waa naga jooga baani maanta yimaadeen xoog baan ku sameeynaa anagoo maqan ku yar baa joog waa naga joogsada wiil ku kii yaraana way dagaal bay ku qaadeen way isku jabiyeen waa la xidhay waxa weeyaan madaxweynaha waxaanu sheegaynaa waxaan ku rahaa madaxweynaha ku xigeenka waxaanu sheeganaynaa culimadiinka waxaan leenahay waar waxaan ku rahaa dadkan maxaan ku rahaa dulmiga hal laga daayo dulmiga hal naga daayo hadii la naga dayn waayo hadii kadib waa shahiid yaa muslimiin baan leenahay Allahu akbar baan leenahay wixii noogu yimaado de waxa weeyaan intaan anagu waxaan ku rahaa waxdiina ayaan gacanteeda wax ku dinaa ma hal la dilo ama meesha faraha la nooga qaado wax alliya wax meesha oo yaalo oo dan guuda ma jirto waxa weeyaan
ninkaa maxaan ku dhahaa maayarki ayaa waxaasoo idilba samaynayo waxaana wuxuu ku samaynayaa labadii jagay xanaanada ayaan iibinayaa buu yidhi waar ma iibin kartid baan anagu nidhi waa colaad halkaa ka kacday oo maxaan ku dhahaa xaasidnimo reerkaasi dulmi baa lagu hayaa dulmi adag baa lagu hayaa taayadana waa la gaadhay tanna waa la wadaa midan lama daynin danta guud waa inay dhammaato waa inay qaanca dadku waa in wax la kala qaato waa in laga hadho dadka lagaamaba hadhayo meel lagu buxinayaan anagu ma garanayna dee hadday dawladdu saa og tahay dee hanaga dayso haddayna ogayna dee halanaga qabto waxaan ka ooyaynaa ka hadlaynaa walaalayaal boobkaana lagu hayo awlaadda had iyo jeer la xidhayo qaar baa xidhan iminka oo nala diiday meel alla meelaan ugu hagaagno waan nulaanahay oonu qada ugu geyno weliba markaa waxaan doonaynaa in awlaadda naloo nabadgeliyo oo nalaga garaacin oo nala dilin qoribaa had iyo jeer nalala dhacaya dabadiisa marka annagu wax kala garan mayno dumarka carruurta cirroolaha waxaanu qaadanaynaa dhagax gaadhiga halkaa yimaadi nolol la tegi maayo waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inaa dadka dulmiga nagaga qaadanaya intii aan deganayn ee cirfiidada dabada naga gelinaya ee ubadkiisa u jiidhaya ee qoriga dabiisa nala dhacaya inuu naga qabto ayaan ka codsanaynaa dawladda sharafta iyo maamuusta bal ayaan ka codsanaynaa waxaanu nahay dad danyaro ah waxaanu nahay dad masaakiina waxaanu nahay dad xamasa markaa dadka diinta islaamku dee dadka isdhaca may odhan diinta islaamka hala isdhaco xuurta hala isku qabtana may odhan hala isgubaystana ma odhan waxa diinta shareecadu islaamku ayna ogolayna dee bilaa ma ogolaan karayo waxa weeyaan waa run saa imika maslaxaadda nii sheegay ee jaarku sheegay ee jiiraanku sheegay ee dadka islaamta ee goobta nagula nool ay sheegeen run weeyaan dee waan bixinay waxbarashadii waan bixinay dugsigii waanu bixinay xanaanadii waanu bixinay miskiidkii waanu bixinay madrasadii waanu bixinay goobtii biyaha waanu bixinay 5 goobood reer bixiyoon annaga ma jirto saraf baanu ku dhimanay dawladda waxaan ugu deeqnay hana nabadgeliyo yaa madaxweynuhu ha wadaan annaga hana nabadgeliyo sidaa hana lagu daayo darleeyna ninka degan wakiilayaasha beerta dadka beerta iskale aniga oo ah wakiilayaasha iskale beerta wakiilka meesha iskale waxaan halkan ka cadeynayaa waxay noo cadeysay maxkamaddu in wax dan guud ah na lagu lahayn cadeynteediina warqadeediina wataas wada aragtiin oo tarixfaanku ay noo soo cadeysay marka waxaan halkan ka cadeynaynaa madaxweynahana u ogeysiinaynaa taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigaba dhammaan in annagu aan meeshayadaasi wixii nooga yimaadaay dagaalna waan ka naqaanay iyo shiidiya muslimiin alxamdulillahi rabbil caalamiin halkaas waxaanu ku cadaynaynaa cabashadayadii inaan sifo sharciya u marnay oon u gudbinnay maxaan ku dhahay maxkamadda racfaankaan u gudbinnay maxkamaddu rafcaanku markay aragtay goobihii ee nala soo raacay waxay xaqiijisay in haba yaraatee wax dan guuda aan nalagu lahayn halkaana waxaa ku dhan cabbiraadkii aan bixinnay oo dhan marka ay noo qoraysayna kumay jirin xanaanadana dib baan kaga darnay waxaa laysku dayayaa inaan maaragtay dhulkaa boobna lagu sameeyo warqaddaa kale waxay iyadna caddaynaysaa in dhulkayagii annaga oo nool annaga oo jirna annaga oo gob ah oo ma aragtay somalilan qayb weyn ku darsannay oo waxbarashadii caafimaadkii iyo biyihiiba wax ka qabannay in haddana dhulkayagii ay ka codsadaan maayarka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose in dhulkaa la qaybsado waa intii ubadkayagaan ugu tala galnay waa waxaan badnayn waa 13 jago ayaa la doonayaa in haddana la qaato waa warqaddaa kalena waa tii maxkamadda cabdikariim ciise cabdulaahi cabdikariim staji magaalada boorame xarunta gobolka awdal